ayay lacagtan ii soo diraysaa ma aqaan qaaba u sheego waa bishii labaad ay ii soo dirayso $1,000 afar shan lix toddoba sagaal toban gabadhan Soomaaliyeed waxa ay ku nooshahay dalka Mareykanka waxa ay ka damqatay gabar kale Soomaaliyeed oo i dhibaateysay oo lacag iga dhacday $40,000 gabadhan oo ila soo xiriirtay bishii shanaad dhibki markuu i gaaray waxay ii balan qaaday in bil kasta ay ii soo diri doonto lacag bishan waxa ay noqotay bishii labaad ay ii soo dirtay lacagtaas dareenkayga lama soo koobi karo oo si fiican u hadli karo balse waxa ay muujinaysaa tan in gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan aysan ahayn gabdho xun haddii shalay gabar ay dhacday oo waxyaabo aan munaasib ahayn ay igu sameysay maanta gabar Soomaaliyeed oo weliba dhibkeeyay qadka social media ka aragtay ayaa ii soo gurmatay waana bishii labaad ay ii soo diraysa lacagtaas sidoo kale waxa ay ii balan qaaday bisha 12aad ama December inay ii soo diri doonto lacag ay ayuuta qaadan doonto oo gaarayso 13,000 waxay sheegtay gabadhan Soomaaliyeed inay ka xun tahay dhibka soo gaaray waxa ayna muujinaysaa dareenkaygaan la soo koobi karin wax walba waxa iga sii daran gabadhan kaliya waxay aragtay dhibkayga garabkan iyo gacalkan waxa kaliya maanta ka keenayo waa Soomaalinimo waa bini'aadanimo ma dhihi karo gabdhaha Soomaaliyeed way wada xun yihiin waxa laga heli karaa gabadhan magaceeda iyo sawirkeeda ayaan niila wadaagi lahaa balse waxa ay iga codsatay inaan soo bandhigin waxay sheegtay inay garabkayga ahaan doonto ilaa muddo ah balse waxaan u rajaynayaa gabadhan Soomaaliyeed in Ilaahay aakhiri adduun oo barakeeyo bedel khayr badan uu soo geliyo tanna waxa ay muujinaysaa tani waxaan ku guursan doonaa gabar kale haddii Ilaahay idmo sida balanta ay gabadha ugu qaaday waxay tiri lacagta guurka kaaga bixi doonto ilaa lacagta ay ku buuxsami doonto anaa buuxin doono waxaasna ha ka xumaanin garabkaagana anaa ah Ilaahay kadib waxaan ka codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro gaarsii walaalaha kale si ay farxadan uga qayb qaataan shalay dhibkayga haday arkeen maanta farxadeeda ha arkaan in gabar Soomaaliyeed lacag intaas la eg bishii labaad ay ii soo dirayso waa wax weyn oo qof walba uu ku farxi doono markale waxaan ka codsanayaa muuqaalkan u sheer garay walaalaha kale una soo ducay gabadhan oo farxada iga badatay iga raali noqda ma mahadsantiin. Assalaamu